بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan jeclahay inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago xog xasaasiya oo aanu ka helay magaalada Addis Ababa iyo Muqdisho oo magaalooyinka caasimadaha labada dal. xogahani waxay sheegayaan in saraakiil ka socota dowladda Itoobiya gaar ahaan waaxda sirdoonka ee NISA ee National Intelligence Security Service of Ethiopia ay qorsheynayaan ama horeyba loo qorsheeyay inay magaalada Muqdisho tagaan. saraakiishan waxaa hogaaminaya Ambassador Wandimo Asamanio oo ah nin safiir ah oo horey Soomaaliya uga soo shaqeeyay. waxayna doonayaan in magaalada Muqdisho laga fuliyo istiraatiijiyad xeel dheer oo muddo dheer laga soo shaqeynayay. mana doonayso dowladda Itoobiya inay fursad dahabi ah oo ay waqti dheer ku bixisay, dhaqaale ku bixisay, maskax ku bixisay, wadamo shisheeyana kala shaqeeyeen inay lumiso. dowladda Itoobiya doonisteedu waa inay qabsato Soomaaliya oo ay meel mariso hindisaha lagu kala qoqobayo shacabka Soomaaliyeed qolaba meel lagu xidhay, maamul goboleedyadana loogu sameeyay. haddaba xogaha aan helayno waxa ay sheegayaan in Ambassador Wandimo loo xil saaray in uu kulan degdeg ah la qaato musharaxiinta ugu cadcad doorashada Soomaaliya. wax ka hirgalay ilaa hadda war kama qabno. koox khubaro ah oo dhanka maaragtay ka socota sirdoonka ayaa la socota. waxaana la doonayaa in musharaxa soo baxa ay Itoobiya saarto culays xoog badan. xoguhu waxay intaas ku darayaan in Itoobiya ku weerarsan tahay ilaa hadda cidda ku soo bixi doonta ee noqon doonta madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo ay wax yar inaga xigaan 3 maalmood kaliya ay inaga xigaan. sidaas darteed waxaa dhunsan jahada iyo oo maaragtay aan la saadaalin karin, ma saadaalin karaan qofka uu noqonayo madaxweynaha Soomaaliya. dowladda Itoobiya waxay aad isugu dayaysaa inuu soo laabto Xasan Sheekh Maxamuud, laakiin rajo badan kama qabaan oo waxay ka cabsi qabaan in baarlamaanka Soomaaliya oo ah dad cusub oo wajiyadoodu cusub yihiin, horeyna ayna ula soo dhiilgaraynin oo aan ahayn raggii shaabadaha dhabarka laga saaray, aynan kalsooni badan ku qabin cidda ay dooranayaan. aad ayay ugu jaawarartay dowladda Itoobiya. sidaas darteed qorshaha la diyaariyay halista badan waxa uu yahay in musharaxa soo baxa madaxweynaha Soomaaliya noqda 4 sano soo socda in hay'adaha sirdoonka Itoobiya ay kulan degdeg ah la qaataan. kulanka degdegana lagaga wada hadlo in dalabaadka Itoobiya uu fuliyo, si toos ah inuu fuliyo, haddii kale inay iyagu tallaabo cad ka qaadi doonaan haddii uu ku shaqeyn waayo rabitaankooda. waxay qorsheynayaan in safarka ugu horeeya ee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu ku baxo uu ku tago magaalada Addis Ababa, halkaasna uu kula kulmo saraakiisha iyo madaxda ugu sareysa dowladda Itoobiya. walibana sidii ay horey u sameyn jireen in halkaan 10 lagu soo siiyo oo lagala soo hadlo masiirka shacabka Soomaaliyeed, inuusan isagu ahayn mid matali kara. haddii uu rabitaankooda ku shaqeyn waayana inuu meesha dhaafi doono. qorshahaas iyo istiraatiijiyada cad waa mid ay dowladda Itoobiya muddo dheer ka shaqeynaysay, mana doonayso inay lumiso fursad dahabi ah oo ay u aragta maanta inay Soomaaliya maaragtay madaxa kaga taagan tahay, hawle ka fulin doonto. waa arki doonaa wixii ka soo baxa iyo qaabka wax ugu qabsoomaan iyo sida ay wax ugu hirgalaan. laakiin qorshahaasi waa mid meel maray, waa mid la doonayo in lagaga shaqaysiiyo halkaasi shacabka Soomaaliyeed, baarlamaanka, hay'adaha sirdoonka, kuwa militariga iyo guud ahaanba
ummadda Soomaaliyeed iyaga ayay u taallaa waxa ay kaga tallaabo qaadayaan iyo qaabka ay isaga difaaci doonaan cadowgaas ku soo duulay.